mawduuc muhiim ah ayaan rabaa halka kale inaan ku soo qaato oo dhammaantiin idiin muhiim ah, gaar ahaan ragga. hase ahaatee intaynu bilaabin barnaamijkeenna, aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina quruxsan iyo sidaad nooga faa'iidaysaan ama aan idinkaga faa'iidayno. Channelkani ka mid noqdo bahdiisa oo ah midkan loogu adeegayo bulshada si gooniya. sideedaba shucuurta haweenku way ka jilicsan tahay ama way ka saamayn badan tahay midda ragga. hal kelmad haddaad xaaskaada ku tiraahdid way dhoolla caddaynaysaa, wejigaaday farxad ka buuxinaysaa. waxaa macquula inuu hal eray ama hal kelmad ninku yidhaahdo xaaskiisa ku yidhaahdo qurux badan, laakiin uu arkay asaga wax yaroo iska fudud, ama iyadoo ka codsato oo asagu arkay wax iska fudud. hase ahaatee saamayn weyn ayay xaaskiisa ku leedahay oo shucuurteeda iyo maskaxdeeda ku reebaysa raad aad u dheer. erayada kan haddaad xaaskaada dhagaheeda maqashiisid ama aad ku tiraahdid, insha allahu tacaalaa nafteeda ayay ku dhiibaysaa ee xalaasha ooga faa'iidayso, ixsaankeedana ka soo baxay insha allah. erayada aadka ay raggu u sahladaan laakiin haweenka soo jiita saamaynta badanna ku reebo waxaa ka mid ah inuu ninku yidhaahdo, indhahaadan weligay koonka kuma arag, indhahaadan noocaana weligay ma daawan, waa weligay ma arkin. kelmad yaroo fudud weeye, laakiin xaaskaada farxad weyn bay uga tegaysaa. ereygaas haddaad xaaskaada ku tiraada khajal bay dareemaysaa, waxay aaminaysaa aragtidaadu inay ku maman tahay ama ay ku jeedo indhaheeda ama ayada. jumlada tan ama kelmadda tani saamayn weyn bay xaaskaada ku reebaysaa. noloshu insha allah waa sii quruxsanaanaysaa, way sii horumaraysaa, way sii fiicnaanaysaa biidnillaahi. marka ha sahlanina noloshu si aysa idiin sahlan. haddaad awoodidniyo xaaskaada inaad maqashiisid inay tahay indhaheedu indhaha caalamka ugu qurux badan, maqashiya kala bakhaylin. haweenaydu markay ka maqasho ninka jecel ama qaba in uu ku yidhaahdo quruxdaadu waxay iga dhigtay inaanan qurux kala dareemin ama aan ku fakerin, raalli ahaansho iyo daacadnimo sidaa u dheh insha allah. gabadhaada ama xaaskaada waxaad maqashiisaa, waxaan rajaynayaa inaadan aamusin. hadduu ninku yidhaahdo xaaskiisa ku yidhaahdo ma doonaya inaad aamustid hadal uu yidhaahdo, waa nin xaaska jecel. kelmaadkaas haweenku way jecelihin, waayo wuxuu doonayaa in uu dareemo waxa uurkaada iyo maskaxdaada ka guuxaya, ama hadalka bushimahaada iyo afkaada qaabka u soconaya inuu dareemo iyo wanaag ka arkuu rabaa. marka wuxuu kaa doonaya inuu yidhaahdo weligaa ha aamusin, weligaa hadal, weligaa dadaal. ninka xaaskiisa ku yidhaahda waxaan rabaa inaadan aamusin, waa nin doonaya inuu ku seexdo ama uu ku soo tooso erayada ka soo baxaya xaaskiisa ama qoftiisa sharafta leh ee uu jecel yahay, ee uu rabo inuu guursado afkeeda insha allah. xaaskaada waxaad ku tiraahdaa, waa ha sahlan inaad ku tiraahdid, waxaa tahay qalbigayga mid ku ah sidii boqorad ama amiirad oo kale. sideedaba kelmadda ah haweenayda in lagu yidhaahdo waxaad tahay amiirad ama madax ayay qalbigayga ku tahay, oo waxay jecel yihiin haweenku quruxda iyo farxaddana usii siyaadiya. sideeda haweenkuba waaba waxay yihiinba amiirada iyo madaxda quluubta, inay quluubta ku weyneedaan oo la sharfo wey. ninka xaaskiisa markuu yidhahdo ama gabadhu jecel yahay oo guursanayo si uu kalsooni u siiyo, waxaad tahay cimrigayga ama waqtigayga ama da'daydaa tahay. yaa salaam, kelmad aad u qurux badan oo qaaliya wey. suurtagal iima ahan inaan seexdo anoo maqal hadalkaada. ugu dambayn, jeclaada xaasaskiina, raggiina, gabdhahaad doonaysa inaad guursataan jeclaada, runna u sheega, adinkoo ilaahay dartii wax walba uga run sheegaya insha allah. inaad erayo aad fududaysanaysaan maanta in ay way yihiin oo sharaf leeyihiin inaad dareenteen waa filaynaa. aad baad u mahadsantiin. ugu dambayn, nin iyo xaaskaada dareensiiye in ay ayadu ku tahay energy. kulan dambe oo xiisa leh.